السلام عليكم. قضيج على الشريف. waxay tiri duqbulo intaada hadlin baa weli qoslay ku jeclaa walaashay soo dhow soo yaa caadiyaad waa waaska duqbulo ahaa kablo faarax walaalkiis macawkii ka yaraa bashiir ballaa mataanaan xasan guri saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolaa waraawna garsay ku saaha jaab ka jalagti macaan shuuriya banaaweyn shan taaba qab qurri arrin mucjise oo aad iyo aad mucjiso ah dadka indhaha weyn dhibaato haysta waa indhaha weynaha moogta qoraxda haasaan dhig balorta dadka indhaha waa weyn dhibaato haysta indhaha qorax ma fiir karnii anoo indha yareen ba saalay moogta aad iyo aad ya soo dhawaada soo yaa aad iyo aad meel walba ta joogteen alla Soomaalida waxaan jeclaa alla war jeclaa alla dadkayga war jeclaa alla dadkaygu war jeclaa oo hadal jeclaa laakiin war cajiib aan idin wadaa kullu anaguna war kama deyno oo garasaaye warka iskama dhaafno idinkuna war kama deysaan oo waa raadsanaysan halka xaafad walba yaa meel walba laga wada shidayaa aad iyo aad meel kasta ka shidanay hadda aragtaan Nairobi hadda waa habeen iyo Muqdisho habeen iyo Hargeysa laakiin xaafadaha meelaha la fadhiyo dhan yaa ka daaranahay Yurub hadda xaafadaha ka wada shidanahay Minneapolis iyo Mareykanna iska badaaba ayaga hadda nin walba telefoonkiisu ku dhagan yahay talow muxuu soo wadaa talow muxuu sheegay waxa sheegay wada dhageysanaysaan aad iyo aad baan idin kula hadli doonaa si fiican bad dhigeysan soo dhawaada oo sii shargaray aad iyo aad tirada kor ha u kacdo aad iyo aad Group A iyo Group B DJ Suber waa SUBEER soo dhawaado aad iyo aad 1K gaarsi waa war kale wada ogtihiin ma aha siyaasad kama hadlayo 500 siyaasad saaka way seexday odayaashii wixii dhan iyo maamulka og hadda 1K gaarto ma sha Allah sii wada idinkana sii share gareeya waxaan kor ku soo qoray waa arrin degdeg oo muhiim ah oo qosayso saaxiibkay DJ Suber waxaan rabaa inta aanan horta warbixinta iyo arrintan dad baan ka naxin doonaa oo nixi doono arrintan inta aana galin baan rabaa horta marka hore bal inaan wax idin fahansiyo si fiican wax ila fahantaan dadka Ingiriiska degan Yurub waxa uu ilbaxsan dadka Jarmalka iyo Ingiriiska degan iyo Sweden baa uu ilbaxsan iyo Norway wadad ilbaxay weeyaan Mareykanka North America laba magaalaan ka degan oo ku badan oo aad ugu badanahay waa magaalada Minneapolis oo dalka Mareykanka ah iyo magaalada Toronto la yiraahdo dalka Canada daraamarka Minnesota iyo daraamarka ka dhaco UK London iyo areada ka dhaco waxa weeye daraamarada kale ee Soomaaliya iyo wadamada kale ka dhaco xadaari ma waa la fagaraac waa isdilid waa baabi'in weey arrintan hadda maanta iyo shalayto Facebook qabsatay horta meesha ka soo unkuntay gugac uu ka soo yeeriyo waa Toronto weey magaalada Toronto sidaad ogtihiin ama la socono Soomaali badan baa inaga degan in kasta oo marka la isku tufayo la is xadaaradeelayo la yiraahdo Jamaica dadka ka yimaado iyo Soomaalidaas ku bursato dadka Ingiriiska degan cadaanka Britishka ah ee dhaqanka wanaagsan iyo waxba isbu bursadaan dadkan Minnesota degan Minneapolis iyo Minnesota degan ayaguna waxaan darisnahay cadaan waxaan darisnahay la yiraahdo Scandinavianka ka yimid asalkoodii annaguna Soomaali baan asalkano geeska Afrika ayaan ka nimid cadaan bay u badan dadka Minnesota degan marka waxa weeyaan ma sha Allah aad iyo aad war halka markay taaganto halka marayso wax yar DJ Suber ban wax yar ka sheekeynaya qofka uu yahay muxuu yahay maxay dadku u arkaan sidee uu yahay ma inta aanan Toronto Canada aan dhax gelin magaalada Toronto aan dhax istaagin naastiga ka bishaara qalif waa ku taagana walaashay salaan sare madaxdeydii aad iyo aad baan kugu taaganahay salaan sharaf iyo gidoon gabdhaha Soomaaliyeed gabadhaan ugu jeclahay baatay ma sha Allah
Yeah, who is DJ Suber? DJ Suber, horta Snapchat buu ka kacsan yahay. Waa Soomaaliga kaliya ama Afrikaanka kaliya 3-4 million people oo follower haysta weyn. Waa Soomaaliga ama East Afrikaanka kaliya ee gaal iyo cadaan iyo Soomaali ay social media dhinaca Snapchat-ku ay follow gareeyaan weeye. Way follow gareeyaan 3-4 million people. idinku Snapchat-kaasaad ka daawataan videoyada uu soo duubay baad daawataan qaarkoodna magaalada wadanka Sweden bay wada degan yihiin oo daris bay yihiin oo ceesho milix isla soo wada noolaayeen. anigu waxaan isbarannay 2018 bishii December bishii November yaan intoora hawadaas ka naqaanay oo laba noocaan oo social media ku jiraan. bishii November ilaa iyo December baan ceesho milixeena waxaan ku wada nooleen magaalada Muqdisho. waxaan wada deganeen hal hotel baan wada deganeen. wuxuu deganaa second floor-ga aniguna third floor-kan deganaa qolka dabaqa qaybta saddexaad ayaan deganaa. asagana wuxuu deganaa qaybta labaad buu deganaa. isaragnay isbarannay wada cunteennay wada noolaanay waa nin kaftan badan waa nin sheeko badan waa boqor hadduu jiro Soomaaliyeed waa asaga weey. waana sababta ay dhalinyarta Soomaaliyeed gabar iyo wiilba u taageeraan ay u garab taagan yihiin. waa sababta loo jecel yahay uu supporter u helay weey. fanka Soomaaliyeed marka ay noqoto ee laga hadlayo fanka Soomaaliyeed laga hadlayo waa ninka kor u soo qaaday meel fogana muu gaarsi laakiin kor u soo qaaday waa waagu dalka burbursanaa weey. gaalada cadaanka ma garanaysaa ama Yurub hadda garaato ama America hadda garaato ina baray weey. lama xaqiro qofka lama xaqiro hoosna looma dhigo hadalkaygaadu dhageysto. ma heeso videona ma duuba laakiin waa DJ weey. DJ macnihiisu waxa weeye fanaanka marka uu heesayo ee stage-ka saaran yahay waa ninka cajalada ee u dhiibtaan cajalad baa music ugu jirto cajalada u dhiibtaan ee cajalada intuu u geliyo iyadoo muusigii leh u daaro codka u dheereeya mikrofoonkana u sii daaya weeye. waa fanaan qurxiyaha weeye. fanaanka aan daawano ama aan dhageysano ee heesta qaadayo ninka heesta u sameeyo weeye. daas way fanaaniinta u jecel yihiin. daas way dhalinyarta Soomaaliyeedna u jecel yihiin. meesha uu soo galay iyo dhalinyarta iyo saaxiibada uu yimaadana ma xanaaqaan iskumana dhacaan. hotelka aan wada deganeen ee Muqdisho ku yaalay waxaan ku wada joognay aniga oo social media activist DJ Suber oo DJ fanaan al-Nicmaan fanaan Nimcaan Hilaac fanaan Seeraar Suldaan Seeraar fanaan Cabdi Dhaanto gabdho kale badan oo fanaaniin Nayrus iyo Nayrus la raal noqdo magaciina hadaan la qofkaadu ma dhageysto. gabdho badan baa joogay ma sha Allah. waxaa joogtay oo kale oo ku sugneed Allah musta'aan gabadhanadii kale adigu fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo qurbaabi iyo daljoog bay isugu jira bartii joogeen. ninka aan dhageysanaynay nala kaftamayay Snapchat naga duubayay nala qoslayay asagu ahaa. DJ Suber inta aniga waan ka bartay markii aan hotelka hoos soo degano ee qolada maqaaxidu saaf gareynayso ee shaaha iyo quraacda inoo keenayso. intaan ka bartay bay sheegay ee quraacda inoo keenayseen miiska quraacda waiterka inoo keenaya aan sugayno marka shaaha la qaybiyo ama cuntada la keeno wuxuu noqon jiray ninka ugu dambeeyo ee saxanka cunto ku cun. saxan walbo la soo dhigo qofka dhinaca ka fadhiya loo keenay wuu u tuuray. waa nin gobonimada leh weey. waa nin boqortooyo ma garanaysaa ay ka soo jeedo weey. halka markay marayso DJ Suber Soomaali Maxamed iyo inta ma garanaysaa ee ku hareeraysan luuqadooda ku hadasho wiilka yarka way u qiri waayeen caannimada ee caalamka uu ku dhex wareegay. waa ninka ugu safarta badan halkaana waan ka tagay. waa ninka ugu safarta badan qof Soomaali oo safro oo wadamadan caalamka iyo dalkiisa ku safro wuxuu ninka ugu safarta badan weey. waa DJ Suber right now iyo saacadan aan joogno
wuxuu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalkan Canada ku sugan yahay saacadan iyo waqtigan aan idinla hadlayo DJ Sweer wuxuu ku sugan yahay uu joogaa magaaladaas Toronto joogaa ee dalka Canada dhageysta inta uu Soomaaliya marayay inta uu joogay Nairobi inta Ethiopia jigjigay iyo dal Soomaaliyeed iyo caalamka uu marayay iyo Yurub uu marayay miyaan aragnay DJ Sweer oo lagu dhagan yahay miyaan aragnay DJ Sweer oo la caayayo oo la leeyahay asoo qaawan baa video laga soo duubay miyaad aragteen waa maya DJ Sweer qaado halka dhig bal waaska halka iska dhigasay saxmadan markaan hadaay hadalkayga bilaabayay yaan rabaa saxmadan inaad fahantaan oo aad iyo aad u fahantaan hadalkayga aad u dhageysto saxmadan inaad fahantaan yaan rabaa hadalkayga aad u dhageysto dad baa qabiil ka dhigaya way saaqay waa daarooday waa hawiyay ninka waxa ma qoro hawiyi daarooday shaab ma qoro Soomaali weyn buu calanka buluuga Soomaaliyeed iyo muusigada kala halka markay marayso dadka ku dhaqan Minnesota iyo Minneapolis ku dhaqan waa gob dhashay weey mamed qaracmaan mana nasabad qaracmaan dadka Ingiriiska degan iyo UK degan waa dad gob oo aad iyo aad gob oo ixtiraam oo la cusuriyeenin weey dadka ugu dhaqan xun Soomaalida qurbaha soo gashay bal hadalkayga aad u dhageyst dadka ugu dhaqanka xun ee wallahi nasty hadaad maqashaan waa dadka Canada degan weyn wax kalena uma dhaay dad sharaf la ku nool dad magaraysa ixtiraam la barta ku nool laakiin dadka qabyaaladu ay dilootay ee qabiilka u fariistay bogga u fariistay ee isdilo ee caruurtooda mindiyaha isgiliyaan ee dhaqan xumada aan ka xishoonin ee lagu xanto Jamaican iyo balaayo iyo lagu xanto wallahi inaan been ka sheegay maanta waxa weeye aad baan u xanaaqsanahay ma garatan waa dadka Toronto iyo Canada iyo degan weey aniga naftirkayga familkayga degan waxa weeye dad wanaagsan way degan yihiin laakiin dadka ilbaha u noqday dhageysto dadka ilbaha u noqday dadka Toronto iyo Canada degan waa very nasty weeye very nasty weeye xaqiiqda dhabta ayaan rabaa inaan idin korgeeyo oo aad fahantaan oo qalbadiinu gasho oo maskaxdiinu ilaan Ilaahay baa waaski Facebook-ga dhigay hadalkayga u dhageysto DJ Sweer Toronto ku sugan yahay Toronto muxuu soo aaday waana isweydiinaa ana su'aasha idinka jawaabiyo dhageysto yarka Soomaaliyeed Ilaahay magaca siiyay Snapchat-kaas gabdha dhar ku wada gato rag baa kaba ku wada gado rag baa Snapchat-ka ka wada ganacsado DJ Sweer wuxuu suuqa la soo galay oo Nairobi-na uu kaga cilaamiyay Muqdishona kaga cilaamiyay finaanad yar oo hooyo ay ku qoranto waa soo xiran laha ma hayo finaanad brandkeedan magaceeda la yiraahdo hooyo I love hooyo ninka iskala magaceeda waa sagan waa nin aqli badan waa nin active waa nin businessman rabo inuu social media siday beelahan caalamka uga faa'iideysteen inuu uga faa'iideysto rabo weey hooyo finaanada hooyo ay ku qoran tahay wuxuu kaga dhawaaqay Nairobi waad la wada socoteen oo daawanaysiin kuwa Snapchat-ka ka daawado iyo kuwa Facebook-ka ka daawadaba waad la wada socoteen DJ Sweer Mareykan ma imaanin laakiin access iyo visa wuxuu ka helay Canada Toronto program buu sameystay finaanadii hooyo macaan ay ku qoreed yuu rabaa inuu ka cilaamiyo dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto inuu kaga dhawaaqo oo branch laga furo ayuu rabay hadalkayga u dhageysto markay halka taaganta finaanadii hooyo iyo DJ Sweer ay bartay taagan yihiin yaa rabaa wax yar bal inaan dib idin ku celiyo rag baa ceeboobi rabo horayna u ceeboobay haddana ceeboobi doona insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo hadalkayga u dhageysto reer Toronto anigu waan imaada rarbaan keena Toronto familkayga degan ehelkayga degan arxankayga degan kama maqna every 1 month ama 3 month waa soo gaara Toronto waan imaada
magaalada Toronto laba diiq bay leedahay laba diiq afka lagu dhufanaya lagama xishooraya hadalkayga aad u dhageysto magaalada Toronto laba qaybood bay u kala degan tahay markaan dhinaca fanka ka hadlayo weey ila DJ fanku ku jira markaan fanka ka hadlayo laba diiq bay u xiran tahay waa daarood iyo hawiye hadalkayga aad u dhageysto daarood iyo hawiye waa saaxiibo daaroodka iyo hawiyaha waa saaxiibo waxbay wada cunayaan laakiin magaalada ayaga ma ogiyo cid kale inay ku noolaato ama qof kale uu soo dhaxgaro diyaaro ma laba atoore leedahay laba atooro oo gaangistaryaale oo laandheerayaale oo aan kala dhicin bay leedahay daaroodka beesha daarood fanaaniinteeda sharafta leh ee Toronto degan inkasta oo fanaan bay iga deganeen barta oo fanaan ba halka iga deganayn waxa atooro oo hogaamiyo nin la yiraahdo iskhilaaji nin la yiraahdo waad maqasheen fanaanka iskhilaaji waad maqasheen Soomaa iskhilaaji adeer wixii absame dhaharti mareexaan daarood fanaaniintooda dhan nin uusan asaga furaha ku rogin ma ka dhaqaaqaya Toronto hawiyaha dhinaca kale waxa hogaamiya nin la yiraahdo Cabdullaahi Boqol waad maqasheen Cabdullaahi Boqol ma maqasheen Cabdullaahi Boqol nin la yiraahdo oo habar gidar oo fanaan waa taqaanaan baro maleynaya yaa qaybta kale ee beesha hawiya u dhalatay ninkaaba hogaamiyo magaalada horta labada qayb bay u kala xiran tahay hadalkayga aad u dhageysto labada atoore iskhilaaji iyo Cabdullaahi Boqol yay u kala xiran tahay magaalada Toronto iyo dalka Canada bal hadalkayga aad u dhageysto hadalkayga aad ha loo dhageysto dhuux oo fahan oo social media hadda qasan dib ugu noqo yaa videoga walaalkay DJ Subeer yaa buunbuuninayo yaa wadwado yaa magaranaysaa ee caydii aflagaadada la daba taagan waa inaad dareentaan weeye war marka halka marish DJ waa saaxiibkay DJ Subeer halka ii dhig Cabdullaahi Boqol iyo iskhilaaji halka ii dhig laandheerayaashu dhalay halka ii dhig taariikhdu way isa soo celcelisaa ninkii la oran jiray Cawaale aadan ee beesha Ciise u dhashay yaa arkay meel uu ka baxay Cawaale aadan meel uu ka baxay yaa ii sheegi karo option bal soo hordhigay eeda oo anaga aadna soo raacdid or eedaad qolada kala raacdid Cawaalaadan wuxuu yiri Soomaali baan ahay Soomaalinimadan ku dhimanayaa Soomaali baan noqonayaa uu yiri kaba shaqeynaysa lagu yiri eeda oratorahaas daarood inaad raacdid oo godadkiisa ku tumatid or eeda inaad raacdid atoraha beesha hawiye u dhashay ee hogaaminaya fanaaniinta hawiye inaad raacdid mid soo raac baa lagu yiri Cawaale waa tuu wadanka isaga cararayo meelaha Djibouti iyo iska wareegay macnaha uu diiday qoladan inuu xumeeyo waa diiday laakiin markii dambe dhinac buu u jarjarsaday waa loo qaylo khadka waa laga tuuray sirtan marka dhaxbartanka ku dhufanayay dhageysto sirta yaan dhaxbartanka ku dhufanayay hadalkayga aad u dhageysto ninkii DJ Subeer ahaa ee laandheeraha ahaa horta Soomaaliya dhan waa isugu mid iskhilaaji groupkiisina ma raacin Cabdullaahi Boqolna groupkiisa ma u saraacin magaaladii baa asaga ticketkiisa soo goostay invitationkiisa ku yimid laakiin dhinacan wuxuu u badan yahay DJ Subeer wuxuu u badnaa dhinacan ninka Cabdullaahi Boqol hadalkayga aad u dhageysto waa xadiis hadalkayga aad u dhageysto DJ Subeer markuu magaalada yimid dhinaca wuxuu u badnaa Cabdullaahi Boqol iyo fanaaniinta uu hogaamiye Cabdullaahi Boqol dhinaciisa ayuu u badnaa waxaa lagu buriyay oo lagu xumeeyay namarkii uu hogaaminayay ninkii ay iskhilaaji groupkiisi yaa lagu burinayay oo la tusay oo lagu yiri waa wiil ma garanaysaa ir Soomaali ama noocan DJ Subeer yana anagu infaad garanay baa lagu yiri sidaba nimanka loo tus nimankan uu iskhilaaji hogaamiye beesha daarood u dhashay ee halka saxan wax ku wada cuno waxba dan kama galin oo DJ Subeer inuu u dhaxeeyay iska yara dareemayeen laakiin bahal baa qaraxday
bahal baa qaraxday hadalkaygaad u dhegayso DJ Subeer maalmaha ka mid yaa dhalinyartii iskhilaaji dhinacan kale uu hogaaminayay ee beesha daarood ahaa yaa qada u sameeyo meesha Easter la yiraahdo reer kanada way daawanayaan naastinimada iska daayaadiyaan meeshan Easter la yiraahdo gabar gidir baa ma adinkoo beesha wiiyo dhalato malinaya yaa lagu ifaad gareeyo bartii bay raggi isku arkeen dadka markay magaalada yimaadaan way isku qoslayaan laakiin way isgurayaan bal hadalkayga u dhageyso bismillaahir rahmaanir rahiim annaga saadhaano oo calool fiyowaanina waan hadlaynaa diyaad laakiin dadkan isu qosle haastas ka wada jarayo yaa horta dhibaatays ninkii DJ Subeer ahaa yaa maqaaxida Easter Dixon ka dhinacan ka soo xigto Dixon inta ku taalaaydan inta ku taala maqaaxida wad qareysaan waa tagay ma sawir kareen maqaaxidii bay waxay ku wada qadeeyeen nimankii ahaa Umar Barbar Sutuur iyo iskhilaaji iyo raggii baa barta ku wada qadeeyay sawir bay wada galeen video bay duubeen hadalkayga aad u dhageyst video bay duubeen la jaala buteenayo ninka DJ la yiraahdo Subeer meel walba u tago waa ka jaala buteenaya kaftan qosol sheeko bagaraysaay orod carar balaaya bixish DJ Subeer wuxuu sawir la galay oo la qadeeyay ninkii Umar Barbar Sutuur iyo ninkii iskhilaaji ahaa yusawir la galay ninkii Cabdullaahi Boqol ahaa ee dhinacan kale ee beesha kale fanaaniinteeda hogaaminayay xanaaq bay bikhdeen bal hadalkayga u dhageyso xanaaq bay bikhdeen curiiba kala gaay